Kylian Mbappe waa magaca ay maanta ku faanaan kubadda cagta adduunka, balse ka hor inta uusan noqon boqorka xawaaraha, waxa uu ahaa wiil yar oo ku koray xaafadaha duleedka Paris, kaasoo aan haysan wax aan ka ahayn kubad, riyo weyn iyo anshax adag. Sheekadiisu ma aha mid ku bilaabatay guulo degdeg ah, balse waa safar ka soo bilowday waddooyinka ciidda ah ee Bondi, halkaas oo uu ku bartay in xirfadda lagu helo dulqaad, tababar joogto ah iyo in lagu daydo geesiyaasha waaweyn. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyay 10 qodob oo si qoto dheer u falanqeynaya carruurnimadii Kylian Mbappe iyo dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee qaabeeyay nolosha mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn kubadda cagta adduunka. Hase yeeshee, is-xasuusin, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garee saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garee, like saar muuqaalkan oo u share garee saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan u sii gudgalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad: deegaanka uu ku dhashay iyo saameynta reerka. Kylian Mbappe wuxuu ku dhashay Bondi, oo ah xaafad ka tirsan duleedka magaalada Paris, 20kii Diseembar 1998. Qoyskiisu waxay ahaayeen dad isboortiga aad ugu dhex jira. Aabihiis Wilfried wuxuu ahaa tababare kubadda cagta ah, halka hooyadiis Faiza Lemeri ay ahayd ciyaartoy caan ku ah ciyaarta handball-ka. Tani waxay ka dhigtay Kylian Mbappe inuu ku dhex koro jawi dhiirrigelinaya guusha iyo anshaxa ciyaaraha. 2. Tababarkii ugu horreeyay ee AS Bondi. Isagoo 6 sano jir ah ayuu bilaabay inuu u ciyaaro kooxda maxalliga ah ee AS Bondi, halkaas oo uu aabihiis tababare ka ahaa. Macallimiintii xilligaas arki jiray waxay sheegeen inuu ka duwanaa carruurta kale, xawaarihiisa, farsamadiisa iyo sida uu u go'aan qaadanayay waxay ahaayeen kuwo ka horeeya da'diisa. 3. Sawirradii Cristiano Ronaldo. Muuqaalka ugu caansan ee carruurnimadiisii waa qolkiisa hurdada oo ay ku dhegsanaayeen sawirrada Cristiano Ronaldo. Ronaldo wuxuu u ahaa idol ama qofka uu ku daydo. Tani waxay muujinaysay hamigiisii fogaa iyo inuu rabo inuu gaaro heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta adduunka. 4. Akadeemiyadda Qaranka ee Clairefontaine. Markii uu gaaray 12 sano, waxaa loo xushay mid ka mid ah akadeemiyada ugu caansan adduunka ee Clairefontaine, halkaas oo laga soo saari jiray xiddigaha ugu fiican Faransiiska. Muddadii uu halkaas joogay, indhaha kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa ku soo dhacay, waxaana la ogaaday inuu yahay hibo naadir ah. 5. Booqashadii Real Madrid. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa carruurnimadiisii waxay ahayd markii Zinedine Zidane uu ku casuumay Real Madrid si uu tijaabo u soo maro isagoo 14 sano jir ah. Inkasta oo uu fursad u helay inuu la kulmo geesigiisii Cristiano Ronaldo, haddana reerkiisa waxay go'aansadeen inuusan weli ka bixin Faransiiska si uu waxbarashadiisa iyo koritaankiisa caadiga ah u sii wato. 6. Doorka hooyadiis ee anshaxa iyo waxbarashada. Hooyadiis Faiza waxay door weyn ka ciyaartay in Kylian uu ahaado qof dabeecad wanaagsan oo aan ku kadsoomin lacagta iyo caannimada hore. Waxay ku adkeyn jirtay inuu waxbarashada dhammaysto, taas oo ka caawisay inuu noqdo ciyaartoy maskax furan oo si xirfad leh u hadla. 7. Saameynta Thierry Henry. Tan iyo yaraantiisii, dadka falanqeeya kubadda cagta waxay u bixiyeen Thierry Henry-ga cusub. Qaabka uu orodka u bilaabo, sida uu garabka bidix uga soo galo, iyo dhamaystirka goolka waxay aad ugu dhawaayeen halyeyga Faransiiska. Isbarbardhiggan wuxuu ku kiciyay loolan iyo inuu ka dhabeeyo rajada dadka. 8. Ku biirista kooxda Monaco iyo diidmadii kooxaha kale. Inkastoo kooxaha sida Chelsea, Real Madrid iyo PSG ay wada rabeen, haddana Kylian Mbappe qoyskiisu
waxay doorteen kooxda AS Monaco sababtoo ah kooxda Monaco waxay caan ku ahayd siinta fursadaha dhalinyarada. Wuxuu halkaas ku biiray isagoo weli dhalinyaro ah, waxaana loo diyaariyey qaab xirfadeed oo heer sare ah. Jabinta rikoorkii Thierry Henry 2015. Kylian Mbappe waxa uu kooxda koowaad ee Monaco u saftay isagoo jira 16 sano iyo 347 maalmood. Wuxuu jabiyey rikoorkii Thierry Henry ee ahaa ciyaartoygii ugu yaraa ee u safta kooxdaas. Dhacdadan waxay calaamad u ahayd dhammaadka carruurnimadiisii iyo bilowga xirfadiisa xirfadleynimo ee rasmiga ah. Jaceylka uu u qabay kubadda cagta. Mid ka mid ah macallimiintiisii hore ayaa sheegay in Kylian uusan weligiis ka xiiso dhici jirin kubadda, xitaa marka uu guriga joogo wuxuu daawan jiray ciyaaraha. Waxa uu kaloo ku tababaran jiray barxadda gurigooda, isagoo aan marnaba ka weecan hadafkiisa. Go'aan qaadashadiisa iyo diirad saarkiisa tan iyo yaraantii ayaa ka dhigay maanta xiddiga uu yahay. Haddaba waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadka. Carruurnimada Mbappe ma ahayn mid ku timid nasiib oo kaliya, balse waxay ahayd isku darka hibo dabiici ah, hagid sax ah oo waalidkiis ka timid, iyo go'aan adag oo uu ku gaaray inuu noqdo kan ugu fiican adduunka ayaa gaarsiiyey heerka maanta uu taagan yahay. Haddaba saaxiibayaal, waxaan inoogu eg qisadii Kylian Mbappe. Intaan ku kulmi doono mid tan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.